maamulaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee degmada Garadag Biile Axmed Caarshe ayaa ku hawlan sidii xog rasmi ugu heli xaaladda guud kaamka barakacayaasha ee hoostiga degmada Garadag sidoo in badan oo kamid ah kaamka u kurgalay xaaladooda isla markaana haatan ku sugan kaamka magaalada Fadhigaab ee ka tirsan degmada Garadag kaasoo warbixino kala duwan ka dhageystay waayeelka iyo waxgaradka iyo hay'adka magaalada Fadhigaab isla markaana xukuumadda iyo hay'adaha ugu baaqay inay il gaar ah ku soo eegaan kaamkan Fadhigaab kaasoo haatan dadka ku nool ay jilicsan yihiin waa kuwan iyo ka hadlaya isla markaana ka warbixinaya xaaladda kaamkan Fadhigaab xaaladda ay ka warrameen markaan anagu hadda soo gaadhnay aanu kurgalay hawsha aan anaga nala soo idmaday waxaan halkan fariin uga dirayaa gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha xinif waxaan leeyahay xaaladdu 4 bilood dadkaasi waxba may qaadan sanadkuna uu kala wareegay hay'adihii wadada way maqnaayeen waxyaalaha laga cabanayo waa nolosha asaasiga ah ee waa biyihii caafimaadkii waxbarashadii iyo hoy loo dhiso iyo cuntadii marka gudoomiye waxaan ka codsanaynaa inaad labada kaamkii hore correctionkii aan soo marnay iyo kaamkanba si degdeg ah wax looga qabto xaaladda taala gudoomiyaha Fadhigaab bulshigii dadka qaxootiga deganaayo Fadhigaab dad aad iyo aad fara badan baa degan dadkaas oo 4 bilood waxa maarag haddii biyo tahay iyo haddii caafimaad tahay iyo haddii cunto tahay waxaan leenahay dadka yacni haddii ku rooyahay wasiirka dibadejinta hawshan u qaybsan madaxweynuhu xisaaray waxaan leenahay dadkaas waa dadka lagu xisaaray waa dadka qaxootiga balaawo ah inuu ka hoganaya dadka waxa weeye nageer hawlo yeesho waxa laga soo gaayo madaxweynaha mas'uuliyiinta u sheegaynaa dadka halka tuban inay dadkii yihiin barakacayaasha ahaa ee Fadhigaab kaamka shimbira jooja iyagoo baahidooda ilaahay inuu yahay wax badanna sidii hay'adaha iyo sanadadii hore maraan waxba u qaadan waxaan ku baaqaynaa hay'adaha bixiyayaasha iyo dadka mas'uuliyiinta iyo dadka dhaqaalaha haysta dadka waxaanu ka codsanaynaa u sheegaynaa inay dadkaasi dad liita yihiin biyaraan hayso cunto darro hayso caafimaad darro hayso oo aan dhaqaatiir iyo aan lahayn maamulaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha degmada Garadag Biile Axmed Caarshe ayaa soo toddobaadadii ugu dambeeyay ku hawlaa sidii xog rasmi ugu heli lahaa dhammaan kaamka hoostiga degmada Garadag oo madaxweyne Rubaanta Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag